labada kun iyo afartii bishii lixaad baan nimid anigoo arday ah oo Suudaan ka imaaday xilligaas caafimaad ahaan aan muddo week ilaa 10 ber ku dhawaan joogay ilaa fadli waan ku raystay xilligaas galaaska labaad baan Suudaan ka ahaa marka wali qalbigan ku hayay kadib caafimaad anoo meel baan soo marmaray ilaa Turki ayaan malayko ii dambeysay sanadkii hore ayaan halka nimid malaykana taariikhan wax badan baan ka hayay biyaheeda hadda waxaan deganahay 7 bilood meelaas sababtu waxa ay wixii aan kala kulmay xilliga ayada ah oo isleeyahay caafimaad baan bilaahi ka siiyay kadib aan meel badan maray wixii malayko aan ka helay ama caafimaadkii markaan aan dareemay aan meel kale ka helin isla 20 sano kadib markaan soo noqdayna isla sidii iyo wanaag aan dareemay waxay sababtay inaan waxaan dhahaa aan ku fikiro anigu aan meeshii wax ka dhiso degaan ahaan u imaado ka degaan asal ah reer dhanaan baan wax dhanaan baan way xanuunka xilliga faa'iido xanuun gastriga hayay ulcer Suudaan baan tagay endoscopy la geliyay in badan arday baan ahaa arday la joogta way wada og yihiin kadib Turki baan tagay Sacuudi Carabiya aan tagay anoo amal xajna u tagay caafimaad u tagay intaas oo dhan wali caafimaadka ma gaarin sababtuna waxay ahayd kolonka waxa la yiraahdo ama qoloonka iyo gastriga ugu badnaa oo ulcer ilaa gaaray dhaqaatiirtuna dhijina operation waxba lagaga heli maayo kadib baan malakimid ayaa waxa ilaahay sababay ceelka malayko maxaan ka ognahay taariikh ahaan marxaladaha uu soo maray iyo sida lagu ogaaday in ceelkani biyihiisu daweeyaan xanuunada dadka ku dhaca gaar ahaan dheefshiidka waxaan jeclaan lahaa inaan ceelka taariikhan wax yar ka sheego qarnigii 19aad waa qarnigii ku horreeyay bilowgiisii ayaan baxaritaan waxaan ku ogaaday ceelku in xilligii qodaalka fiican lagu sameeyay ee bilowga uu ahaa isagoo dhowr ceel kali oo xagga sare ah xilligaas ka koobnaa taariikhdiisu way soo socotay ceelash way ceelku wuxuu soo socdaba isagoo ceel laga cabaad wanaagsanaa 2000 waxaan jeedaa 77kii ama dagaalkii 77dii Itoobiya Soomaaliya dhex maray jabhadu inay aad soo degaan meeshan ceelku inuu ku dhacday duqeyn daran xilliga ayada dad badan ay ku dhinteen geel badan oo ku dhintay halka dixdii hadda idin muuqata ceelku waxay sababtay arintaasi halkii uu ahaa xilliga magaalo ahayd Garbaan aan jirin inuu u soo guuro dhankan hadda anagu maanta aan joogno dhacdada kadib ceelku shuhro badan iyo in aad loo ogaado afafkiisu inay bataan oo la qodo ceelal badan oo fara badan ayaa dhacday 40 sano u dambeeysan waxa la ogaaday dadku xilli hore biyo ahaan bay raadin hayeen cab hayeen iyadoo tajrubo la qaado fara badan oo dad badan la ku caafiyay la arkay in ceelashu ay yihiin ceelash biyahooda ka badan ceelasha kaleete sidaan ribadka afcarigan ku diyaariyay shiniile iyo ceel xaar iyo bullaali iyo shalaabo kaleete ceel ka bedelan biyihiisu inay yihiin baa la ogaaday oo dadkii inay imaadaan isku daweeyaan ayagoo gobolada kale ka imanaya sanadii ugu dambeeyay waxay keentay in dibadda looga imaado marka oo cid walba qaraabadeeda kale u sii sheegto malakan ku raystay ceelkaas jira saasoo ahaa marka taariikhda ceelku halkaas soo martay maanta ceelasha fara badan weeye intaan raan ribada facaribood dhameystir man ka sameeyay hawsha way eega aad hotel baad ku leedahay maxaad la kulantaa dad inteedan ayaa halkan yimaada arrimo caafimaad sida runta ah ceelka hawshiisu waa waxa la yiraahdo afka carabiga mawsimi waxa waa xilliyad xilliga labada xilli ama dayrta dabayaqadeeda ah ama guga dabayaqadiisa sida xilligan ku jiray xagaaga ah ayaad loo imaadaa bisha soon dadku ma calash ma bixiyaan way inta badan ka maqan yihiin roobka markuu jiro oo jidadku ay xun yihiin ceelka jidka soo galo dhan badi way liideen inta badan way xidhmaan sida runta ah xilligaana lama imaado laakiin markuu roobku sii qaado oo meel la mar la helo waa la imaadaa doorkii hore meeshan dhisay way buuxday haddana way buuxdaa hotelka kale oo nin qurba jooga Mareykanka joogo isna uu leeyahayna sidoo kale wuu buuxaa dadku meel ay degaan bay leeyihiin habeenkii waxaan la kulanaa hadda xaaliyan xilligan aan kula hadlahayo qofna meel uu degay igama helay way buuxdaa meeshan waa yartahay waa 7 qol
oo min laba ruux rajo waxaan ka qabnaa inaan kordhino laakiin hadda dadku way badan yihiin wayna buuxdaan dadka imaadana haween bay u badan yihiin boqolkiiba 70 haween bay u badan yihiin 30 kale ayaa raga